markaynu ramadaan qabanno laba shay baa ugu fiican mid waa inaynu dembiga iska maydhno midna waa inaynu darajaadka kor u korno ajarka aynu shaqaysanayna inaynu badinno mustaqbalka u dhiganno dembigii hore inaad iska maydhid oo nadiifisid ramadaan waad awoodi kartaa inaad ajarka biirisana markaad intaa maydhana waad ziyaada can dunuubaad shaqaysato na waad awoodi karaysaa si awgeed baa manqabada ramadaan ajarada ay leedahay waxaa ka mid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiisulqudsiga wuxuu ku sheegay ilaahay baa wuxuu yidhi kullu camal ibni aadama lah reer nabi aadam oo dhammi camalka shaqaystaan iyagaa leh ila asiyaamu mooyaane aw ila sawm soonka mooyaane fa innahu lii waana ajzi bihi isaga anaa iska leh oo ka abaalmarinaya baa ilaahay yidhi dabeetana xadiidka wuxuu sii tilmaamayaa wasiyaamu junnatun soonku waa gaashaan dunuubta lagaga gaashaanto naar lagaga gaashaanto fa idaa kaana yowmu sawmi axadikum midkiin hadduu maalintiisii soonta joogo falaa yarfus yowmaidin walaa yaskhab yuu maalinta afxuma ku hadlin oo yuu qaylinin hadday cidi ku caydana buu nebigu yidhi amase kula dagaalantana ajarkaaga ha iska dumine waxaad tidhaahdaa innii mru'un saa'im war waan soomanay ku dheh qofka ku caaya ama kula dagaalama innii mru'un saa'im ku dheh waladii nafsu muxammadin biyadih لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه حديث كان انت ينوص عنان قدن لي وحويا إلهي باوح لي سبحانه وتعالى بن آدم كو عمل كيس دمانتي سقا اسكال صونت موياني صونت سياني قالوا كأبا المرينية حديث كمعني سوية سي الله فصيرية فصير هذا ترى بدن بي علماء الشيغان لكن علماء بربا واحد هذا لبدا قول سفيان بن عيينة با ugu dhow waliba labada qowl mid baa nusuus tusii rajaxaysa الامام سفيان بن العيينة محدث كي لو oran jiray sheekh الامام الشافعي رحمه الله عليه سفيان بن عيينة با wuxuu leeyahay laba qowl لكن كصحة هذا نسكا قادرنا حويان صونكو أعماشك لوردن بني آدم كاسكاله وحانا إلى محي أجر محدود بيلادي أجر حدا يسمى أعماشك لوردن ميلادي صونك مو يعني حديث بانا ساعة دينسا الأصل أعماش حير با إلى هي ولقياه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها قفك حسنات سميسته وانو طبعا لابا يابا إلى هيري حسنات كستاء سميسته طبعا لابكت أي إلهي كسينيا لكن انت سوى انت حق الله كوسي لكن هدي إخلاص كاغو بطو مال في عليك وقول عضو حسنات كقاركود بكبطو قاعدة إلى 700 تضواب بقول أو تشيرين لقول بالله طبعا لابكو waa imisa haddii aad shilin la baxdo shilin kale lagugu daro waa imisa 100% soo maaha طبعا laabku markaa waa 1000% asal ilaahay waa qani asal wuxuu inooga dhigay xasanadeenu 1000% baa u asala waa minimumka abtu waxay soconaysaa maxay 700 ضعف يعني 700,000% in lagu dalaco shilinkaagii 700,000 oo shilin inuu gaadhi karo kow liman yasha ayuu ilaahay u dalacaa wallahu waasi'un caliimna weeyaan haddaba soontu waxay culimmadu leeyihin xeerkaa way ka baxsantay soonku xeerkaa way ka baxday oo xadiis saxiixa wuxuu leeyahay kullu camal ibnu aadam يضاعف له الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به عمل كستوقف وسما استوى الله بيا طبعا شير إلا إيا تضوب غلو شير من فضل الله سبحانه وتعالى صونك مو يعني بالي أما صونك
isaga anaa iskale baa ilaahay yidhi isagu waa gaar isagu markaa culimmadu waxay leeyihiin anaa leda idaafada tani waxay macnaynaysaa bay culimmadu leeyihiin sirta ah inaanu iyadu ku jirin waxyaabahan uu xadaysan yahay ajarkooda ee ajarkeeda ilaahay ubaa garanaya walidalik baa mufasiriinta qaarkood waxay ku fasiraan aayadan qur-aanka ee ilaahay leeyahy inamaa yuwafi asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab shahru sabrina waa la yidhaahdaa shahru soonna waa la yidhahdaa oo dee sabir dhammaantiibuu qofku la imanaya inuu can ilmacaasi wa can ishahwaat ka soomo inuu cala taacaati ku sabro iyo wixii mashaakil iyo aalaam iyo maqaadiir soo gaadha inuu ku sabro haddaba bisha tani waa bil aan rabno laba wax inaan helno kow in ilaahay dembigaaga dhaafo hadda maaha inaynu iyada dembi kororsanno dadka qaar baa bisha tan musalsalaad iyo balaayo bishii uu dembiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba ma aha bil uu qofka bini aadamka ay kaslaan noqdo bilaad marna hurudown marna ma aha waa bil qofka muslimka ay ijtihaadu ku jiro waa qofka muslimka waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaystaha isku dayay inuu gaadhsiiyo muxuu rabaa in ilaahay dembiga ka maydho wuxuu rabaa ajar inta ugu badan leh inuu shaqaysto wuxuu rabaa inuu ku biiro min cutaqaa'ih kuwa ilaahay naarta ka xoreynaya habeen walba naarta badh baa laga xoreeyaa bisha tan oo dhan wadaaka fi kulli leyla buu nebigu yidhi habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya inaad u dadaasho sidii aada ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyey ee inaad dembi kororsato maaha walidalik baa caaisha markay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow haddiiba ilaahay haleeshiyo aan ku beegmo habeenkaasi leylatulqadriga ah maxaan idhaahdaa bay ku tidhi nebigu wuxuu yidhi waxaad tidhaha allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cani ilaahu dembigayga rogdhe ilaahu icafi waxaad ku ducaysataa habeenkaasi ha noqoto buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahu cafi bisha tan cibaadaadka la sameeyo culammadu waxay yidhaahdaan markaa cibaadooyinkeedu uma dhigmaan xataa cibaadooyinka bilaha kale la samaynayo walidalik baa maalan nebigu wuxuu leeyahy cimrada la cimraysto ramadaan gudaheeda tacdilu xija wa fii bacdi riwaayaat xijatun maci ramadaan inaad soo cimraysataa xaj bay u dhigantaa xagga ajarka marka la eegu nebigu tilmaamaya ama xagga dembi dhaafka ama weynida xaj bay u dhigantaa baa layidhi riwaayaadka qaarkood baa weliba waxaa leeyahy xaj aad nebi maxamed la xajtay xaj oo dhan maaha xaj aad wadaad yar raacday maaha xaj aad nebi maxamed la socotay ayay u dhigantaa haddaba waxaan leenahay ayuha alaxiba bisha tani waa bil uu qofka muslimka ahi training galo waa course uu qofka muslimkii tadriib ku qaato tadriibkaasi kow wuxuu salaynayaa inuu uskaga iskaga maydho gaalnimada iyo dunuubta oo dhami waa najas waa najaasat alqalb kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun baa ilaahay tilmaamaya qalbiga waxaa daxaleeyay maa kaanuu yagsibuun uskagoo dhan inuu qofku iskaga maydho waa waxa koowaad waa marka labaadee naar inuu ku xoroobo waa marka saddexaadee inuu ajar helo waa marka saddexaadee waa bil uu taqyiirkaba suurtageliyay qofka muslimka inuu noloshiisa bedelo waxyaaba bini aadamka ugu adag ee noloshiisa ka mid ah cunooyinkaa ka mid ah cunadaadii baa la raray wakhtigaad wax cuni jirtay iyo wakhtigaad seexan jirtay iyo wixii oo dhan baa la bedelay idan haddii waxyaabihii fastka ku ahaba la bedeli karo everything noloshaada ku tacalluqa waad bedeli kartaa you can change balwad ha noqoto caada xun ha noqoto dembi ha noqoto wax kasta oo nolosha ku tacalluqa waxay yidhahdaan culammadu bisha tani waa shahrun litagyiir gebigeedba waa systemkaaga nololeed oo dhan inaad dib u hufto balaan cusub inaad degto oo ah saad u xoroobi lahayd ee naf iyo shaytaan uga xoroobi lahayd walidalik baa waxaa la bedelay wakhtigaad wax cunaysay waxaa la bedeloo la cidhiidhiyey wakhtiyadii
وحال كردي وقتيada cibaadada nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam acmaal gaar ah jirta uu bishan inoo sii tilmaamay waa kuwa ugu culus ee traininka lagu qaato traininada ugu culus kow de isagu waa ramadaan waa wada garanay iyada in la soomayo waa garanay waxyaabaha ugu culus ee bishan la qabto waxaa ka mid ah nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waa bishuu malakul jibriil qur-aanka la daraasayn jiray malakul jibriil baa u yimaada nabi maxamed iyo malakul jibriil baa waxay daraaseeyaan kitaabka alle ilaahay hadalkiisa idan bisha tani bay culimadu yidhaahdaan waa bilu qofka muslimkii u xidhxidho inuu ku tadabburo ilaahay kitaabkiisa oo fahmo ilaahay muxuu nolosha ka rabaa inaan sameeyo